السلام الله عليكم سوري وذا قياري magacaygu waa maxamed cabdiqaadir dabcan suudi showna waad nagala socotaa waxaan kula wadaagayaa warbixin ama qoraal uu soo dhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump fariin ay u soo diray dowladda Nigeria haddaba fariintu maxay tahay wuxuu ku goodiyay in ciidamada Mareykanka ay gudaha dalka Nigeria u soo gali doonaan haddii dowladda Nigeria ay sida ugu dhaqsiyaha badan wax ka qaban weyso xasuuq lagu hayo dadka Kirishtanka ee ku nool dalkaas هذا واسطة الصحة أو قرالك أو قصقرة لبعضها يحسوق اللغة يدك كريشنا كان نيجيريا كنا لوان لصعنا ونونا وعنو باقينا دولة نيجيريا إن سيدو نقصيها بدن أي وحوق قبته هديك إذا مدينا يا جودها وسوقلايا وأنا جايا كعمبر أكو قبنينا واسطة فرنت ويري أنت وربحين تنقول جل واحد ربع إن أن أفهم موضوع عن كهذا ليو دي بحيركو عليو لبسنا وحسوق إبابين قدومين دقين دل توغشة توصة إيجاجين لسوق دريدات كرير خسر وجيت كأول لقى لهنا واحد إن دول كاسو وجري شدال بدن إسرائيل لوقع عنجليو سي مريكان كا ومارمو شدال كا عربت يسوس عرن وحكست لك حق إلهي كسر توبان كان شقيان ويسعو يسهوشص وحكستو استعمالين أود كس استعمالين إلا هادوي كأتكاوين وينكون جوبين دونالد ترامب استوغو مركاسي معين بدايا أما دونالد ترامب isagoo markaas isbidaya awoodiisa wuxuu markale isku dayay wadanka laba jibaar ka badan shidaalka keydkiisa ee Latin America ku yaala waxaana target u noqday dalka Venezuela waxa ku jira shidaalka Sacuudi Carabiga ku jira keydka ku jira laba jibaarkiis si micnaha maadaama hadii Venezuela Mareykan uu heshiis la galo ama uu xoog ku muqooniyo shidaalka waxa ku gaari doonaa gudaha dalka Mareykanka wax ka yar 24 saacadood sidaas ay tahay marka Venezuela madaxweynaheeda arintaas waa ka dhidhiyay waana ka soo horjeestay dowladda Mareykanka wax isku dayday xataa wax kasto ay u awood xataa inay soo qafaalato madaxweynaha dalkaasi Venezuela iyadoo ay dowladda Mareykanka la hadashay ballanqaadina u sameysay bayloodka khaaska ah ee madaxweynaha Venezuela waxa loo ballanqaaday duuliyihii Venezuela madaxweynaha Venezuela diyaaradda duuliyaha ninka ka ah in la sii doono guri weyn oo qasri ah dhalashada Mareykanka 50 milyan amaan oo gudaha Mareykanka u noolaa doono haddii diyaaradda uu ka soo dejiyo mid ka mid ah jasiiradaha oo Mareykanka maamulay Latin America ma aysan dhicin arrintaas banaanka u soo baxda wayna fashilantay laakiin waxaa jirta in ciidamo lagu hareereeyay kun oo ciidamo iyo doomo iyo maraakiib diyaaradaha qaada Venezuela oo hadda ay ku jiraan hareero cabsi gelin iyo cagajugleen loona sheegay in Venezuela ay tahay meesha daroogada laga soo geliyo Mareykankana uu ku bartilmaameedsan doono gudaha Venezuela dadka daroogada keena ujeedku ma aha daroogo laakiin wuxuu yahay in dalkaasi xoog wax looga qaato ama dhaqaalihiisa ama shidaalkiisa meel laga soo daldasho maxaa arrintan ku timid waxaan ognahay reer galbeedka in hore uu u duuli jiray wadamada Islaamka Iraq Afghanistan Syria Libya Soomaaliya meel badan ujeedka laga laana waxay ahayd in shidaalka iyo kheyraadkooda la qaato tusaale haddaan hal iyo laba ku siiyo Afghanistan 22 sano ayuu haystay shidaalka iyo daroogada iyo maaragtay macdanta ayuu qaatay markii ay ka dhamaatayna wuu isaga tagay Libya ujeed kale lagama lahayn saldhigyo ka samaysteen sidoo kale Syria waa wadan kale tusaale weyn ah qayb waxa haysta Mareykanka qaybna Ruushka qaybta Mareykan oo haysta waliba dhuumaha shidaalka ayuu Mareykanka deganaa halkaas ayuuna macdanta iyo shidaalka ka qaadanaya waxa cajiiba marka wadamada Islaamka maadaama awalkii hore loogu mamarsiyoonayay argagixisyo iyo alqaacido way soo dhamaadeen oo wadan la isku halay kara oo dhaqaale leh oo carab oo dhisan oo haram ma jiro ama wadan la weerari kara wadamada khaliijka waa meesha ugu dambaysa way ilaashadaan oo way ka meermeerayaan intay meelo kala helayaan maadaama wadamada khaliijka dhaqaale badan haystaan lacag badan haystaan dunidana ku abuuri karto xiisad adag haddii weerar lagu qaado hadda marka waxa loo soo jeestay Latin America iyo Africa Latin America laguma fuudaa karo waa dad intooda badan dhulkooda ama dadka deegaanka hubeysan sida Soomaaliya oo kala gaangiska iyo burcadkana ku badan yahay marka way adkaa doontaa in shidaal laga qodo ama macdan ama minerals wadankaasina la weeraro ciidamada ay ku dhex noolaadaan ma suurtoobayso way adkaa doontaa marka waxa loo soo jeestay markaan qaaradda Africa Nigeria wadamada shidaalka soo saara oo shidaalkiisa iyo macdantiisaba qoto ayuu ka mid yahay qaaradda Afrika
maadaama sidaas uu yahay waa meesha ugu sahlan ee maantay mamarsiyo ama ujeedo gudaha ugu gali karaa ciidamada Mareykanka halkaasina macdanta iyo maaragtay iyo shidaalka ay qayb ku qaadan karaan taasaana sabab u ah in Mareykanka maanta uu dowladda Nigeria ku tilmaamo dowlad aan waxba u qaban xasuuqa dadka shacabka ah ee Christian-kaana ku daawanaysa koox yar oo aan ognahay awoodda ay waddanka ku leeyahay Nigeria marka waxaan rabnaa inaan dib u soo galno Donald Trump isagoo hortiisaba Christian miyaa mase ma aha haddii la isweydiiyo su'aashaasi khibrada inta badan arrimaha siyaasadda iyo weliba dadka arrimaha diimaha ka hadla waxay yiraahdaan Donald Trump ma ahan Christian sababtoo ah lama arkin asagoo kiniisad ku jira oo tukanaya lama arkin asagoo ka qayb qaadanaya maaragtay diimaha ama xafladaha Christianka isagoo laakiin mar walba horbooda danaha iyo siyaasadda iyo dhaqaalihiisa wixii quseeya inuu markaas ag istaago taas waxay ku cadaynaysaa Donald Trump wax diimaha oo inta badan oo ku lug leeyahay ma jiro yes way jiraan diimo u necab yahay sida diimaha diinta islaamka oo kale marka taa waa ka waxa dib loo soo laabtay meesha la leeyahay dad lagu xasuuqay North wax cajiib ah in dadku u badan ay yihiin dad muslimiin ah tusaale yar haddaan dib buusiyo ama ku xasuusiyo 200 gabdhood ayay afduubteen 200 ay gabdhood afduubteen waxay dad muslimiin ah waxaan xasuustaa madaxweynaha hore ee Mareykanka Barack Obama xaaskiisa Michelle Obama oo arintaasi dhehaysa macnaha ololeynaysa si dadkaas lagu soo day lahaa ama lagu caawi lahaa yelkeedii waxaa jirto kale in maaragtay dadka halkaas ku dhaqan ee lagu dhibaatay yihiin dad muslimiin ah Boko Haramna ay dhibaateysaba dadka muslimiinta ay Nigeria halkaas ku nool waayo waxa la ogyahay kooxahan islaamistiga ay dhisan 90% dunida ka jira waxa maalgeliya ama dhisa gacamo dowladda shisheeye ay ka dambeeyaan saasay tahay marka dadka la xasuuqayo ma aha Christian dhulka inta badan Boko Haram ku nool yihiin dadka muslimiinta ku nool dadka dhibaatada u geystaan waa dad muslimiin ah mana jirto tiro 10 qofood ah oo Christian ah oo meel lagu wada dilay Nigeria ka dhacday ama 100 xataa gaaraysa saas la adligid marka ujeedka iyo danta laga leeyahay waxay tahay markan in Nigeria ugu yaraan la dareensiiyo in laga jafjafto la jiljilo in shidaalka iyo waxyaabaha kheyraadka ku jira waddankaas wax lala qaato isla markii qalqal ayaa ku dhacay dowladda Nigeria waxay ku baaqeen inay la kulmaan madaxweynaha Donald Trump si wax ugu sheegaan waxa uu sheegana ama xaqiiqada ama runta dhabta la taabsiyo si u dareensiyaan in dalkan uusan ka jirin wax la yiraahdo xasuuqa oo loo geysanayo dadka Christianka